dumarka haddaanan labiska dhiganeyn oo sida aratirka aanan u daryadayneyn ha hodinina, xumaan ha ugu yeerinina, wanaagooda haddaanan la diyaar ahayna waray ha laysaga tago. xaqiiqadu sidaa weeye, axad aan u dul qaadan dumarka waxba kuma wadi karo, dariiqaad rabto kuugu toosnaamaydo ayuu yihi sala allahu calayhi wasalam. markaa qof walbow waxaa lagaa doonayaa inaad waxyaalo badan ka qabatid arrinka kan. haddaba walaal, waa inaad ogaataa zawjo waa adiga maradaada, waa tii aqalkaaga hagaajinaysay, waa tii owlaad haddii alla ku siiyo u hooyada ahayd, oo adiga jirkaaga tii xambaarsaneed, waa adigoo wax cunitaan jeysanaynin, waa adigoo dhibaataysan midda dhibkaaga ka walwalaysa, waa waxa ku soo gaaraa midday wadnaha ka bedelayaan, waa maskaxdeeda midday daa'iman adiga arrintaada ku xiran tahay. qofka sidaasa walaalow lama xumeeya, waa la daryadeeyaa, lama dilee waa loo naxariistaa, lama duleeye daliilkaa la baraa, lama dhaqan dareeye dhab baa loo dhaqaaleeyaa, lama inkaaree ducadaa dhab loogu halhaleeyaa. xumaan lagama sheegee samaanteedaa dariiqyada lagu hayaa. waxaa alla looga mahadiyaa in badan wanaagga ay kuu gelayso, ducadaa loogu dhawaaqaa markay khayr kuu dhiigtaba, amar wanaagsan markay kuu qabataba ilaaha kuu labanlaabaa jawaab looga dhigaa. sidaas ayaa guusha lagu gaaraa. ee haddaba walaalow dadaal, haddaadan walaalow inanta caradeeda u dul qaadan, hadal hadday kugu tiraa haddaadan sabar badan la imaanayn, maxay ii tiriso wadaad maahan haddaad oran doontid, malaa'ig aan dambaabayn oon dadka qartimin haddaad u haysatid, walaalow haysnoojina ee dumarka ka fiirso. naftaydaan ku leeyahay iyo nafta kaloon ka naxaya intaba. walaalayaal, arrintu ma hagaagsana haddaan diinta dhab loogu dhaqmin, ee diinta hala ilaaliyo. bidcadii noqon mayso, baadil alle loogu dhowaan maayo, xaqa aan si dhaba u ilaalino. sidaas ayaana laga doonayaa, waa haddaan wanaag doonayno. haddaba walaal, waxaa laga doonayaa ninka muslimkaa inanta muslimadda uu qabo inuu aratirkeeda dhaqo intuu kari karayo, inuu jika la galo oo mihnada aqalka wax ka qabto, wax badan oo ay qaban lahayd inuu yidhaah walaal ka naso, wax badan oo ayada ku culus inuu garab badan ku siiyo, wax diinteeda dhaawacaya inuu dhab uga ilaaliyo, xijaab la-aan inuu ka ilaaliyo, safar maxram la-aana inuu ka waardiyeeyo, waa inuusan isagu dhergin ayadoo gaajo ku seexatay, waa inuusan dharka kala bedelan ayadoo arad ku seexatay, waa inuusan aabihii xariirin isagoo ehelkeeda ayada gooye iyo walaalaheed iyo waalidkeed, waa inuusan walaashiis isaga la dhalatay sara u qaadin walaasha ayada la dhalatay isagoo ihaanaysanaya, waa inuusan ku oranin hadal canaana oo carageliya inantaas, waa inuu weliba ka ilaaliyaa wax kasta oo dhiba saacadday wallac noqoto ilaa ay ka dhali doonto. sow lama yaabtisay u wallacaydo dhibka ay qabto ayadoo caloosha u buuxdo oo mataga marar badan soo daynaysa oo majaheeda xanuun badan uu ka hayo, aneemiya uu jirkeedu la bararay, ayay jeceshay inay ku raalli garaydo, sariirtaada gogosho, waxaad cunto ay kuu diyaarido. qofka noocaasa miyaa la dhibaa, lasa lugooyaa, lasa dhaqan dareeyaa? waa wax la wanaajiyo oo markaad aragtaba sujuudu shukri alla loogu dhaco subxaana wa tacaala. walaal, saas ayaa la doonayaa. laakiin haddaba walaalow, daryadayn haddii aadan samayn karin, asaadan dhib badan xamili karin, guurka layskuna lugooyo dumarkana been looma sheego. haddaadan walaalow u diyaar ahayn matag badan oo qofkaa ka yimaada inaad ka tirtid, dhareerkeeda inaad dhulka markuu gaaro jirkeeda aad ka tirtid, si walba aadan u diyaar ahayn inaad dhabta ugu qabatid, haddaba walaalow dumarka lama lugooyo, guurka waa layska daayaa. xaqiiqaduna sidaa weeye, aanu dadaalno oo aan diinta alla ilaalino. sow ma ogid shahwo oo dhib badan inay kaa xambaartoy adiga aad kuu wanaajinayso? sow ma ogid jir dadka laga qariyay in adiga lagu tusayo? sow ma ogid maxal aan dadka loo soo dhaweyn in adiga laguu soo dhawaynayo? sow ma ogid meel aan dadka lala jiifsan in adiga lagula jiifanayo? sow ma ogid hadal dabacsan oon dadka lagu dhihin in adiga lagugu dhahayo? qofka sidaa kuu wanaajiyo intaa kuu qabtay, jirkeedii dhammay kuu dhiigoo adiga dhan isu kaa dhiibay, agtaada qof la qafaalo asiira ku ahaaday, ilaah jirkeeda aayada kuugu baneeyey, amaakin lagaa mamnuucay hadda laguu qayxay, albaab aan dadka kale lala gelin adiga lagula galay, hadal macaan oon dadka lagu oran adiga lagugu yiri, gacan aan qof kale dusha laga saarin adiga dusha lagaa saaray, makaan aan dadka kale lala huwa aan lagu baalgelin adiga lagugu baalgalay, koray aan dadka kale la siin adiga lagu siiyey,
qofka noocaasa miyaa la xumeeyaa maye waa la wanaajiyaa. haddaanan walaalow daryaday karin dumarka been looma sheego lamana guursadee waa la iska daayaa. ee rabbi ka baq subxaanahu watacaala oo walaal aada u dadaal si wanaagsan wax u ilaali. waa sida layska doonaya ilaahay hana waafajiyo. dad noocaasa haddaanan ahayn sow ma habboonaan lahayn guurka inaan iska dayno, sow ma habboonaan lahayn gabdhaha inaanan hodin oonan been u sheegin ee aan noqono dad wanaagsan daana noqon aan iska dayn. waxa kan waa waxyaa badan rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala. walaalow inanta waxa dhibaa laga dhowraa waan kula guursan iyo xaggaan ka dhicin laguma handado. adigoon dhaqaalo lahayn baan waxyaala xagga ka samayn laguma yidhaahdo. waxaadan u samaynin looma ballankaadoo beena looma sheego. hadal dhaba mooyee wax kale looma soo jeediyo. cabsi allah loo dardaarmaa aroorta hore iyo galabnimada intaba. sariirtaa wanaagga loogu sheegaa iyo kasukadeeda intaba. khayrkay kuu qabataa looga amaal hayaa lagamana meel dhaco. dharkay kuu feeraydaa jannaha allaha kuugu bedelo lagu yihaa. sidaas ayaa loo daryeedeeyaa. haddaadan yeeli karin walaalow lama guursado dumarka been looma sheego. ee rabbi ka baq subxaanahu watacaala. waa inaan garanaa wanaagga oon waajibaadka ilaalinaa. taas ayaa la doonayaa. walaal haddaad orod doontid maxay gabdha iigu dhashay haddii gabadhu gabdha kuu dhasho, hadday ilma dhali weydana aada oran doontid waa maxay naagtaan ilmaha lahayn, hadday in badan jiratana aada oran doontid way igu jiro badatee naag kalaan raadsanayaa, hadday cuntada kuu samay kari oqoo weyda amay samay kari weydana aada oran doontid gacmo beeshadu waa maxee. dadkoo dhanna ay kaaga suka martay jirkeedana ay sidaa kuugu dhiibtay. qofka noocaasa hadallo xun laguma yihaahdee waa la wanaajiyaa. walaalow dumarka haddaadan wanaaji karin, dhibkooda haddaadan xamili karin, wanaagooda haddaadan ka shukri karin, samaan haddaadan sabab ugu noqon karin, saqaro naareed inaad ka badbaadido haddaadan diyaar u ahayn, wanaagga oo dhan haddaadan ku saaxibi karin been looma sheego. dumarka lama guursadee waa la dhaafaa. rabbowna wanaaji oo samaantana waafaji. haddaba walaal dadaal oo rabbigaa ka baq subxaanahu watacaala. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan ilaahayna laycin uusan meel xun allana dhigin subxaanahu watacaala. haddaba walaal shilinkaad haysatid baa loo dhiibtaa. waxaad ku ogeed lagulama xisaabtamee waa la aaminaa. waxay kuu keento waa lagu qancaa ee lama fiirfiiriyo. lama yihaa wuxuu yaraan badanaa iyo wuxuu waa sidee. wax lagama sheegtee warkeeda ayaa la aqbalaa. sidaas ayaa loo wanaajiyaa. ee walaalow haddaadan wanaaji karin dumarka lama guursadee been looma sheegee waa la dhaafaa. rabbi ka baq subxaanahu watacaala. walaalow inanta aad qabtid waa la wanaajiyaa. ayada saad u wanaajidaa dadkay jeceshay loo wanaajiyaa. saaxiibadeed baa la daryadeeyaa. ehelkeedaa la wanaajiyaa. soo dhoweyn iyo hadal fiican baa dadka lagu camimaa. dhaqaala dadka lalama kala gaaree dabci degan iyo hadal macaan iyo salaan aada iyo aada u dabacsan baa lala kala gaaraa. iyo rabboo janno loo weydiiyo. ee walaal rabbigaa ka baq subxaanahu watacaala. khayrkana aada ugu dadaal. waxaan alla ka rajaynayaa inuu alla samaantana waafajiyo. haddaba walaalayaal waxaan idiin sheegayaa cabsida alle intay nagula ekaato unba allana wanaajinayaa.